gabadheedu waxay tiri markaan gaaro 18 sano wax walbaan sheegi doonaa. waxaan ku dhahay maxaad sheegi kartaa, aniga ayaa ku soo koriyay tan ilaa markii adigu lagu dhalay. ma og tahay inta kiis CBA ay ku soo furay 4 bil la soo dhaafay. weli caruurteeda waan haystaa, laakiin markaan sii weynaaday waxaan jeclaaday qof xabsiga ku jiro inuu ila joogo. haa, waan sameynayaa midaas. haddaba hadduu ninkaaga xabsi ku jiri lahaa waan kaa xoogi lahaa. haweeneydan waxay ugu yeeraan haweeneyda ugu xun ee aalada TikTok sababtoo ah iyadu waxay samaysay go'aamo dhaliyay murano fara badan. waxay ku samaysay baraha bulshada welibana ayagoo u soo gudbisay waxyaabaha xun dad gaaraya 1 milyan. tani waa sheekada yaab kale ee Ashtarayno sababta loogu yaqaano hooyada ugu xun aalada TikTok. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada walaalkiina saaxiibkiina qafiifu. qalkeena maanta uu ku duwan yahay muuqaaladeeni hore. haddii TikTok isticmaali jirtay maada isticmaasho waxa laga yaabaa maxay badan tahay inaad aragtay haweeneydan oo lagu magacaabo Ashley ama Ashtarvino. dad badan waxay u arkaan iyad inay tahay waalidka ugu xun adduunka, laakiin sheekadeeda kaliya meesan ku soo bilaaban TikTok si aan u fahanno sida ay halkaan ku timid waa inaan dib ugu noqonaa waqtigeedii dugsiga sare. ay dhiganaysay dugsigeedii sare, Ashley waxay la kulantay wiil la yiraahdo Israel Grace. isagu wuxuu ahaa jaceylkeedii ugu horeeyay, laakiin ma aysan sugin waqti. waxay bis guursadeen ka hor intaysan dhameen dugsigoodii sare. iyadoo markaas waxay jirtay 17 sano, isaguna wuxuu jiray 19 sano. laakiin guurka kaliya ma uusan waxay degdeg u sameeyeen. sidoo kale Ash markay gaartay 20 sano si degdeg ah waxay ku dhashay caruur. gabadheedii ugu horeysay Hailey markay jirtay 3 sano, hadana waxay dhashay markar gabar labaad oo loo bixiyay Ivana. muddo gudaheeda waxay u ekeen qoyska caadi ah, laakiin midaas ma aysan sii socon. Ashley waxay bilowday inay kama seerto gabadheeda Hailey. ma aysan jeclaan sida uu ninkeeda dareen fara badan u siinay gabadhiisa Hailey, wuxuuna daneen iyo dareen fara badan siin jiray gabadhiisa Hailey. darteed way xanaaqday. waxay sheegtay mararka qaar inay ka jiidi jirtay timaha. waxay tiri sababtoo ah ayada aad ayaan ugu xanaaqi jiray. waxay kaloo sheegtay ayada inay dareemaysay gabadheeda inuu aad ugu jeclaa. sidaas darteedna waxay sheegtay xanaaqeeda inay kula duldhacaysay gabadheeda. 9 sano dhibaato kadib Ash iyo ninkeeda waxay go'aan ku qaateen inay kala tagaan. ninkoodana wuxuu dhamaaday 2017. Ash waxay noqotay single mother haysata 2 caruur ah. waxayna markaas xor u ahayd inay sameyso wax alaala waxay doonayso. waxay ku faanaysay Instagram-ka in la soo furay welibana iyadoo sheegtay inay diiradda saari doonto nafteeda. muddo yar kadib 2017 Ash waxay samaysatay aalada TikTok iyadoo markaas ku soo biirtay halkaas. laakiin muuqaaladeeda oo gudbin jirtay kaliya kuwa ka hadlaya single mother-nimada. waxyaabaha ay dhihi jirtay waxyaabaha ay sameynaysa waxay ahaayeen kuwa dhalinaya murano fara badan. Ashley markaas waxay bilowday inay raadiso jacayl cusub, welibana iyadoo ka raadinaysa meelo aan caadi ahayn. dad badanna TikTok-geedan barteeda TikTok ay soo dhigi jirtay nolosheeda jacaylka. hal shay oo ay mar walba sheegi jirtaa wuxuuna ahaa inay jeceshahay ragga bad boys-ka ama ragga xunxun. waxayna tiri markaan sii weynaanayay waxaan bilaabay inaan jeclaado ragga xunxun. waxay tiri ma aqaan sababta, laakiin waxaan jeclaa ragga ku jira xabsiga. taba ahaatee dadkoo idil way la yaabeen Ash markii xiriir la sameysay qof ku jira xabsiga. kadib ugu horeeyay waxaa la sameysay nin lagu magacaabo Isaiah Gonzalez. ninkaasina wuxuu xabsi ugu jiray dhac weyn iyo inuu qof dilay. Ash iyo Isaiah waxay bilaabeen inay isdhaafsadaan warqado, kadibna ugu dambeyn way isguursadeen welibana isagoo ku jira xabsiga. laakiin arooskoodu wuxuu ahaa mid yaab leh maadaama uu Isaiah ku jiray xabsiga. Ash keligeed ay istaagtay goobta arooska welibana iyadoo haysata isaga sawirkiisa. nasiib daro guurkoodu ma uusan fiicnaan. Ash ayaa waxay sheegtay in Isaiah uu joojiyay inuu la hadlo. ugu dambeyn labadoodu bay kala tageen, waxayna mar kale gashay furiin cusub. laakiin Ash ma aysan quusan, waxayna la xiriirtay maxaabuus kale. markaan waxay guursatay nin lagu magacaabo Nuux Lopez Trevino. arooskanin wuxuu la mid ahaa kii hore. Ash keligeed ay istaagtay goobta arooska sababtoo ah Nuux wuxuu ku jiray xabsiga. maalintaas waxay xiratay funaanad ay ku qoran tahay Just Married Nuux and Ash. haddana mar kale guurkaasi ma uusan sii waarin. wax ka yar 1 sano kadib waxay TikTok-geeda ku shaacisay inay kala tageen, welibana iyadoo dhehaysa wiilalow si rasmi ah waan iskaga furay Nuux. Ash wiili waxay sii waday inay la xiriirto ragga ku jira xabsiga. intay midaasi sameynaysay waxay caan kasii noqonaysay aalada TikTok. waxay noqotay qayb ka mid ah sumcadeeda. xitaa waxay ku faani jirtay inta maxaabuus ay la xiriirtay, iyadoona sheegtay inay la xiriirtay in kor u dhaafaysa 50 gaadhaysana 75 qofood. sidoo kalena waxay sheegtay haddii ay mid ku caajisto si fudud inay ugu gudbi jirtay midka kale bil kastaba ama 2 bilood mar. iyadoona sidaas ula hadli jirtay maxaabuus kale sababtoo ma aysan jeclaan kii ay la hadlaysay. markaasna waxay bilaabi jirtay inay sii raadiso mid kale. wax yar kadib Ash waxay barteeda TikTok ka heshay naaneys cusub, taasoo dadku magacaabi jireen ahna Inmate Hoba. halkay ka xishoon leedna way aqbashay inay tahay Inmate Hoba, iyadoona dhehaysa dabcan haa aniga waan ahay Inmate Hoba. welibana waxay u raacisay haa waan ahay haddii uu saaxiibkaaga magacaliyaha gabarhiga ku jira la xabsiga waan kaaga la beegi lahaa. bal qiyaas qof banaanka jooga kadibna kugu handadaya jaceylkaaga magacaliyaaga ma ninkaaga uu ku jira xabsiga inuu kaaga la wareegayo maxaad ku samayn lahayd? dabcan daawade ma fududa qof xabsiga ku jira inaad la xiriirto. barbura xiriiradeeda Ash waxay TikTok live ugu hadli jirtay dhammaan murankeeda. mid ka mid ah muranadeeda ugu waaweynaa wuxuu ka socday mid ku jira xabsiga laguna magacaabo Jesse. wuxuu xabsiga ugu jiray inuu haystay hub sharci darro ah oo sidoo kale ka tirsanaa koox khatar ah. Ash markaas isaga la xiriirtay welibana isagoo weli ku jira xabsiga. uu soo baxay oo malaso sii daan
waxay buu qabatay xaflad hotel halkana waxay buu ku qurxisay oo waxyo gaduud ah xubna TikTok ambartada TikTok ay soo fadhiisatay welibana iyadoo dhaysaa jeesay waa aniga hadda ninkii waxayna raacisay uma beenina isticmaalo tattoo si aan u muujiyo jecelkayga laakiin hadda siga waa ninkayga sidaas ay tahay xiriirkooda ma uusan sii waarin jeesay iyada waa uu ka tegay mar kale iyagoona xabsiga xitaa bilooyin joogin ayuu iyada iska furay Ash markaas aad ayay u xanaaqday waxayna TikTok-geeda live aan u caysay jeesay iyadoo telefoonka kula hadlaysa daawanayo idil waxay bilaabeen markaan inay kalbeelaan sababtoo ah ragga qaar Ash la xiriirisay kaliya ma aysan ahayn maxaabiis waxay lahaayeen taariikh dambiyo culus leh mid ah rag ugu khatarta badnaa ee la xiriirtay wuxuu ahaa Francisco ninkan wuxuu xabsi ugu jiray inuu dilay laba dumar ah mid ah gabdhaha uu dilayna waxay da'aan u dhibid gabadha Ash laakiin Ash weli waxay la xiriirisay Francisco ma aysan qaran waxayna ku soo bandhigtay barteeda TikTok rag qaar xataa live-ka kala hadli jirtay smartphone-keeda ku hadlaysa dadka isku dayay inay aga degan dambiyadiisa Ash waxay bilowday inay isaga difaacdo ku dhaysa wiilal iyo gabdhaha ninkan waa hadii aniga gacaliyahay mana ahan sida idinka moodeysaan ninkan waa daahir waa yani qof nadiif ah waadna arki doontaan laakiin dadka daawanaya kaliya ma aysan ka walwalin Francisco waxay ka walwalsanayeen Ash in dambiyadaas ay la joogto caruurteeda bilowgii Ash waa ay beenisay midaasi iyaduna dhaysa caruurteeda bilowgii ma aysan nala joogin ayaga sidoo kale waxay tiri mid kamid ah maxaabiista markii aan la hadlayo ma aysan ila joogin caruurteeda laakiin sawirada baraha bulshada la soo dhigayeen waxay sheegayaan sheeko kale kamid ah wuxuu muujinaa Ash caruurteeda sawir la galay maxaabiis ku jira xabsiga muuqaal kale waxaa lagu arkay Ash in ay sheegtay gabdhaha inay waqti la qaateen maxaabiiska markii uu soo baxay kaliya oo ay la joogeen meel dadweyne wuxuu ahaa jeesay markii uu guriga yimid Ash xiriirka maxaabiistu qabtay kaliya muusan ahayn jacayl waxay noqotay qayb kamid ah dakhligeeda kasta oo laaf soo gashay mid kamid ah saaxiibada maxaabiista aawadayash ahna waxay u soo dirayeen hadiyado TikTok ah yani libaaxay waxyaabahaas Soomaalida ay dhahaan hadiyadahaas TikTok waxay isu bedeleen lacag dhab ah xitaa laafkaas oo ku jirtay 2 saacadood ay ka samaysay 10,000 oo euro yani waxaan u maleeynaa inay gaarayso 10,000 oo dollar iyo wax ka badan ba waxaynu ka gashay 2 saacadood gudaheed oo kaliya laakiin xitaa lacagta soo galaysa daawadayaashu waxay isku dayeen inay ka digaan waxayna dareemayeen in doorashadeedu ay khatar ku tahay gabdhaha ayada ay dhashay qal ayaa jira oo tilmaamay Ash inay tahay hooyo single mother ah haysatan 2 gabdhood oo da'yar ah aan dan kalen korinta caruurteeda isla markaana dib ugu noolaanaysa da'deedii dhalinyaranimada iyadoona jirta 30 sano yani waxay doonaysay inay is yarayso ugu dambeyn qof ayaa soo cararay welibana isagoo u tagay hay'adda Child Protective Service inay dhibaado sharci ah la gashay caruurteeda hay'adda Child Protective Service ka ama CPS-ka hay'ad u bisa in caruurta ay guriga nabad ku yihiin waxayna booqdeen guriga Ash marar badan laakiin markii wax baarayeen waxay ogolaadeen inay hayso caruurteeda Ash xitaa waxay kasoo faantay TikTok-geeda welibana oo dhaysa CBC-da marnaba caruurteeda ma aysan iga qaadanin waxay dhahday waxay soo gaaray ilaa kiis gaaray 20 kiis oo CPS aantoodu bay iswada xireen sababtoo ah maxaad u malaynaysaa caruurteedu waxay ku jiraan gacmo wanaagsan gabdhaha aniga aan la taas macnaheedu ma inay saameyn ugu yeelanayaan caruurta kale iskuulka waxay ogaayeen hooyadood inay tahay in metoobaasina waxay keentay dhibaatooyin bilowgii iskuulka dheer waxay dhahday bilowgii iskuulka dadka kaliya waxay arkeen hooyadee yani waxayna badanaan ugu arki jireen meelaha cafeteria-da saacad ah waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu noqdo nolosheedii hore iyagoo qof aan waxba ka ahayn dadka hortooda hadalladaasna hadallada ay tiri gabadheeda yar sidoo kale waxay raacisay xishoodku wuxuu noqday mid aad u weyn ilaa ay qasab noqotay in guriga laga baarto laakiin wixii ugu xumaa weli muusan imaan taasi oona ah 3 geesoodka jacaylka 2023 Ash waxay bilowday in la flirt garayso ama jacayl la sameeyso TikToker 19 jir ah oo la yiraahdo Santos kaas yar wuxuuna saaxiib la ahaa gabadheeda welibana iyadoo ugu yeeri jirtay daadiyada soo booday markaas waxaan dhahday waan ku jeclahay Bobby maan dadkii daawanayay waxay u arkayeen xiriirka mid la yaab leh oo ah Ash waxay jirtay 30 sano halka Santosna uu jiray 19 sano farqiina waa 17 sano da laakiin taasi ma aysan ahayn wixii ugu xumaa gabadheeda Haali waxay sidoo kale jecleed ama ay ka heshay Santos jacaylka 3 geesoodka wuxuu kasoo muuqday live-ka TikTok-geeda toos wuxuu kasoo muuqday kaamirada welibana isagoo la jooga Ash iyo Haali labadaba wuxuu weydiiyay su'aal qof waliba ka dhigtay mid xishood leh isagoona ku dhahay sidee aad dareemaysaa hooyada oo ka qaadatay adiga jacaylkaaga iyo dhinac kale taagay waxay isku dayday inay qosasho laakiin way xishootay madaxa hoos geesaan daawadayaashina way carwadeen waxayna Ash ku eedeeyeen inay xaday jacaylka gabadheeda si oo wax aan sameyn karin hooyo Ash markaas waxay ku jawaabtay aniga maan ogeyn hadii aan ogaan lahaa jacaylka marnaba wiilkan lama hadli lahayn kadib dhaleecaynta Ash waxay sii waday xiriirkeeda soo dhigaysay muuqaalo welibana iyadoo la socota Santos iyadoona iska dhigaysa inaysan jirin ba wax qaldan Santos wuxuu arki doonaa wax waliba caawa markii ay la joogto Haali banaayadoo dhaadaliga ma sigi doono wicitaankaasi goordam laakiin sida xiriiradii hore oo kale kanina ma uusan sii waarin
toos ayaa isagana ka tegay. Ash waxay TikTok ugu tagtay iyadoo ooyeysa oo ku caayaysa. Waqtigaas gabadheeda ayaa bilowday inay u dhaqanto si xun. Tusaale ahaan Hailey waxay ku hanjabtay inay siraha qoyska u sheegi doonto dadweynaha. Markaas ayay tiri gabadheedu waxay ugu dhahday markii aan gaaro 18 sano waxaan sheegi doonaa wax wali. Markaas anagan waxaan uga jawaabay adiga maxaad sheegi kartaa aniga ayaa ku soo koriyay tani markii aad lagu dhalayay. Gabadheedii yarata Ivan aydan waxay bilowday inay xirato dhigdhigilbana iyadoo jirta 13 sano. Halkay ku nool yihiin xunuga waalidkiisa aan ogolaan looma ogolaan inuu xirto dhigaal loo isticmaalayo dhigaam kuwa dumarka xirta. Isla markaasina Flowers Ash waxay arkeen wax wali sababtoo mar walba ay soo dhigisay barteeda TikTok. Laakiin markaan arrintu ay u dhici doontaa sidii wax looga bedeli lahaa sababtoo ah dad aad u caanaysan ayaa waxay rabeen iyadoo dhan hawada laga saaray yani TikTok-geeda. Hadiyan dadka baraha bulshada joogan ama Soomaali ahaadana macdana ahaadana madow ahaadana waxay doonaan ahaadaan kaliya waxay jecleen inay daawadaan muranada. Laakiin tarbiyada Ash waxay ahayd mid aad u muran badan. Kan waxay bilaabeen inay talaabo ka qaadaan. Iyagoon report fara badan ka gudbiyay markaas waxay bilaabeen inay codsi u dirsadaan site-ka Jane.original. Tani waa website ay dadku ku ururiyaan arrimaha dadweynaha. Yani badanaa dadka caanka halkan ayaa laga helaa. Haddii aad report qabtaan halkan aad ka gudbin kartaa. Codsigana waxaa loogu magac daray Ash Tarayno si joogta ugu mamnuuc TikTok. Yani TikTok kale inay samaysto idilba kama mamnuuc. Qayb kamid ah codsiyadan wuxuu qornaa sidaan Tarayno waxay caan ku noqotay dabeecad xun oo caruurteeda la xiriirta. Tanina waxay kor imaanaysaa xeerarka TikTok kuwaas oo sheegaya in waxyaabahaas dib u geystaan bulshada ama dadka kale aan loo ogolayn. Siyadaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu ku faafay maalmo yar gudaheeda. Kaasi waxaa la ururiyay in ka badan 30,000 oo report ah. Mar kale waxaa la soo gudbiyay in ka badan 140,000 oo qofood. Qaqa kaliya kuma uusan ekeen halkaas. TikTok isticmaala waxay bilaabeen inay abuuraan hashtag lagu magacaabo Unfollow Ash. Codsiga iyo hashtag bay xoogeysteen. Ash waxay bilowday inay lumiso followers fara badan. Bilowgii hore midaas waxay ka dhigtay inaysan bixin wax muhiim ah. Dhehaysa hal mar waxa iga digtay in gaaraysa 300,000 oo qofood. Taasina aniga ima saameyn doonto aad iyo mahadsantii ay raacisay. Dhehaysa aniga maxaa yeelay mashruuc kama qaato followerskayga ama viewerskayga. Waxay tiri waxaas aniga dakhligayga ma saameynayo waxaan lacag ka helaa subscriberskayga. Iyada iyo daawashada muuqaalada. Taasina waa isheeda ugu weyn ee aan ka helo lacagaha. Kala hadan waxaa ka tagtay in gaaraysa ama in ka badan 100,000 oo qofood. Waxay sii raacisay iyadoo qoslaysa taas markale ma saameynayso. Markaasi hamar waxa bilowdeen taageerayaashii daacad ah inay ka tagaan. Codsigii uu sii kordhay ugu dambeyn waxaa meesha soo gashay aaladii TikTok qofkii iska laam aalada TikTok laftigeeda. Codsiga iyo dhaleeceynta TikTok waxay go'aansatay inay talaabo qaado. Maalmaha kamid ah akoonka TikTok ee Ash oo leh in ka badan 1 milyan oo followers ah. Hal marba hawadaha laga saaray. Ashley waxay isku dayday inay sheegto inay iyadu dooratay midaasi. Libanaydu dhaysa waxaan tirtiray akoonkayga oo gaaraya 1.1 milyan oo followers ah. Sababtoo ah waxaan rabaa inaan dib u soo bilaabo 0 followers aan ka soo bilaabo macnaha. Laakiin dadku idil doqomo ma qof walba runta ogaa. TikTok ayaa ka mamnuucay rasiib wanaag laakiin Ash waxay haystay akoonka TikTok oo keeta inuu soo muuqatay dib walibana iyadoo ku faanaysa. Anaydo dhaysa akoonkayga ayaan dib u helay. Ma ii haysteen saaxiib aniga Ash waan soo laabtay. Mar kale aaladii TikTok waxay rabtay inay hawadaha ka saarto. Kaas aan lagu sameeyay dabagal isla markiina waa laga xiray akoonkaasi. Ash waxay isku dayday si joogto ah u samaysato akoono kala duwan oo cusub. Helay ugu dambeyn 33,000 oo followers ah laakiin si buuxmo waa laga tirtiray. Mid kale ay samaystay isagoo gaar 400 qof xitaa waa laga xiray haddana. Markasta oo ay samaysato akoon cusub TikTok way ka xiraysaa. Walibana sidoo ugu dhaqsiyaha badan Ash ma aysan sii socon karin muuqaalkii ugu dambeeyay. Sidoo kale way daashay markii ugu horeysayna ma aysan iska dhigin gabadh adag. Meeshaas waxaa ku dhimaaday talentigeeda ama xirfadeeda TikTok. Akoonkeeda waa la xiray TikTok wili ma aysan sheegin sababta rasmiga ah. Hadda Ash Tarayno uma muuqato inay dib ugu noqon karto TikTok. Qafiifo aan fahamsanahay daawashada qalaasaha online-ka inay tahay madadaalo. Laakiin Ashley ma ahan kaliya hooyo caan ah. Tusaale u tahay qaar kamid ah dadka haddii aan jeclaano ama aan jeclaan inkastoo internetku uu dadka caan ka dhigo idinku dhiirigelinaya saaxiibeena noqotaan qofka dunida run ahaantii u baahan tahay. Aniga qafiifo si kor intaadan qoran Ashley Tarayno yani aalada TikTok aadan ku soo qaadana muuqaalka naagna saarto sidoo kale xubin muhiim ah ka noqoto channel-keena. Mahadsanid.